heshiis hordhaca oo dhex maray Soomaaliya iyo Masar dhawaan ayaa lagu shaaciyay sida tan. Soomaaliya iyo Masar ayaa yeeshay kulan heer sare ah oo ay kaga wada hadleen arrimo muhiim u ah oo xiriirka labada dal ah, iskaashiga amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka Geeska Afrika. Kulankan oo ka dhacay magaalada Qaahira ayaa waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay labada dal, iyada oo la tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi dhinacyo badan taabanayay. Madaxda labada dhinac ayaa isla gartay in la xoojiyo xiriirkii taariikhiga ahaa ee ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Masar, iyadoo diiradda la saaray sidii loo dardargelin lahaa iskaashi siyaasadeed iyo midka amni. Masar ayaa ballan qaaday inay Soomaaliya ka taageeri doonto la dagaalanka argagixisada, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lagu xoojiyo nabadda iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sidoo kale, labada dal ayaa ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee u dhexeeyay qarniyo fara badan, iyadoo Masar ay muujisay xiisaha ay u qabto inay qayb ka noqon doonto mashaariicda horumarineed ee ka socda Soomaaliya. Waxaa la isla qaatay in la sameeyo mashaariic iskaashi oo dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ah. Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimaha badda cas iyo Geeska Afrika, iyadoo labada dhinac ay isku raaceen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gobolka, si loo damaanad qaado badbaadada isku socodka maraakiibta iyo badeecadaha muhiimka ah. Masar ayaa ballan qaaday inay Soomaaliya ka caawin doonto dhinaca horumarinta bulshada, gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka, iyada oo loo marayo iskaashi dhow oo labada dal ay ku hirgeliyaan mashaariico lagu taageerayo adeegyada bulshada. Wadahadalladan ayaa loo arkaa kuwo muhiim u ah mustaqbalka labada dal, iyada oo ay muuqatay in labada dhinacba ay diyaar u yihiin in ay iska kaashadaan sidii loo xaqiijin lahaa nabadda, horumarka iyo xasilooni waarta oo ka hirgasha gobolada Geeska Afrika iyo Badda Cas.